kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo naga dhageysanaysaan waa subax khamiisa 19 bisha Abriil sanadka 2018 saacadu waa 7 aroornimo Afrikada Bari qodobada aad idaacada ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan oo sheegay inay khasab tahay in Kuuriyada Waqooyi cadaadis lagu saaro inay hakiso hubkeeda nuclear-ka hannaanka waxbarasho ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo qarka u saaray inuu burburo sabab la xiriira cabsi dhanka ammaanka oo soo wajahday macallimiinta aan gobolka u dhalanin madaxweyne Erdogan-ka Turkiga hadii doorasho ay dalkaasi maanta ka dhacdo miyuu ku guuleysan karaa markii aan fiirino axsaabta kale iyo musharaxiintooda oo kulli ay sheegeen in xisbi walba uu tartami doono ilaa 5 xisbi waxaa suuragal ah in xisbiyadaas hadii ay tartamaan madaxweyne Erdogan ay ku adkaato in wareegga koowaad uu helo boqolkiiba 50 wax ka badan waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka Itoobiya oo maanta yeelanaya kulan muhiim ah qodobada iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijka hadduu eebaha wadaleedmo balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Cabdinaasir Saxan mahadsanid geele madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa si wada jir ah u sheegay inay tahay in cadaadiska ugu badan lagu sii hayo dalka Kuuriyada Waqooyi ilaa uu ka ogolaanayo hubka dhigista dhanka nuclear-ka labada mas'uul ayaa ka hadlayay hoyga madaxweyne Trump ee Mar-a-Lago ee ku yaala gobolka Florida Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu u kicitimi doono shirka la qorsheynayo ee dhaxmari doona isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un hadii uu u maleynayo inuu noqon doono mid miradhal ah marka laga soo tago arrimaha Kuuriyada Waqooyi ra'iisul wasaaraha Japan ayaa sidoo kale Trump kala hadlay sidii uu meesha uga saari lahaa canshuuraha dheeraadka ee uu ku soo rogay birta Japan ay u dhoofisay Mareykanka balse Trump ayaa sheegay in Japan aan laga dhaafi doonin canshuurta 25% ee lagu soo rogay birta Japan koox falaaga ah oo Kurdiyiin oo ka howlgasha dalka Suuriya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen nin lagu eedeeyay inuu hore uga qayb qaatay weeraradii lagu hoobtay ee 11 September 2001 lagu qaaday daarihii dhaadheera ee Mareykanka ninkani ayaa lagu magacaabaa Maxamed Haydar Samar waxaana la sheegay inuu isagu tababaray xubnihii Al-Qaacida ee diyaaradaha inta duuliyay kadibna ku dhuftay xaruntii ganacsiga adduunka ee New York iyo xarunta gaashaandhigga ee Pentagonka wakaalada cirbixiyeennada Mareykanka ee NASA ayaa hawada u gantay dayax gacmeed cusub kaasi oo lagu rakibay qalabka xoqad ah ama aalada aragti fogeynta ee telescope-ka loo yaqaano kaasi oo la sheegay in lagu baadigoobayo kumanaan meero oo ka shisheeya koonkani aan ku noolnahay barnaamijkani ayaa looga gol leeyahay in xoqadaha kale ee yaryar loo soo tabin doono xogo sidii hore ka faahfaahsan oo ku saabsan meerayaasha cusub ee la darsayo cilmi baaris cusub ayaa lagu sheegay in kuleel 2 sano ka hor ka dhashay badda gaar ahaan dooxooyinka badda gunteeda ah ee geedaha cagaaran ay ka baxeen uu kuleelkaasi ahaa mid aad u daran kaas oo gabi ahaanba gubay inta badan dhirtii cagaarnayd saynisyahanada ayaa sheegay in ay ugu wacan tahay heerkulka badda oo maalinta ka dambaysa sare u sii kacaya boqorada Ingiriiska boqoran Elizabeth ayaa magaalada London maanta gelinka dambe ka furaysa shirka madaxda dalalka ku bahoobay barwaaqo sooranka waxayna u eg tahay in ay tahay markii ugu dambeysay oo ay shirkan shakhsi ahaan u furto boqorada oo 92 jir ah ayaa aad u soo yareysay dhaqdhaqaaqeeda gabow awgiis waxayna xil gudashadeeda boqortooyada ku wareejinaysaa xubnaha kale ee qoyskeeda ugu dambeyntiina aqalka sare ee Mareykanka ayaa meelmariyay sharci ogolaanaya in xildhibaanada aqalkaasi ay caruurtooda markaasi dhashay ay la gali karaan gudaha aqalkaasi xilliga ay socoto codeynta arrintani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadkii hore ay umushay haweeney xildhibaanada oo lagu magacaabo Tammy Duckworth noqotayna qofkii ugu horeysay taariikhda Mareykanka oo ilmo dhasha iyadoo xildhibaanada sharcigan meelmariyay ayaa sheegay inay muhiim tahay in xeerarka ay noqdaan kuwa u adeega arrimaha qoyska oo aanan caqabad keenin gel aad ayuu mahadsan yahay Cabdinaasir Saxan warkii caalamka nala socodsiinaya dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka aan ku bilownay sidii warkaba ku maqleyseen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa labaduba sheegay inay khasab tahay in cadaadis xooggan lagu saaro Kuuriyada Waqooyi inay hakiso hubkeeda nuclear-ka labadani hogaamiye ayaa ka hadlay gobolka Florida ee dalka Mareykanka xilli lagu wado in Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un
ay kulmaan bartamaha sanadkan. wararka arrintaas ee BBC-da ka qorta waxaa soo koobaya Axmed Badar. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu rajeynayo in kulanka la qorsheynayo in uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu noqdo mid guul ku soo dhamaada. balse Mr. Trump ayaa waxa hoosta ka xariiqay in haddii aysan sidaasi dhicin si xushmad leh uu shirkaasi uga bixi doono. madaxweynaha ayaa intaa ku daray in marka la eego marxaladda la soo gaaray uu rajeynayo in kulankaasi uu guulaysan doono. If I think that it's a meeting that is not going to be fruitful, we're not going to go. kama qaybgeli doono kulankaasi haddii aan u arko inaanu midho dhal noqon doonin. haddii markaan ka qaybgalo kulankaasi ay ka soo bixi waayaan waxaan filayo si xushmad leh ayaan uga soo bixi doonaa. waxaan markasta jeclahay inaan noqdo qof la jaanqaadi kara xaaladda taagan. marka waxay la tahay in maadaama aan halkan soo gaarnay aan ka guulgaari doono kulanka, balse haddii aan dareemo intaa ay dhici doonin halka ayaan ku joojinaynaa. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dhanka kale ku baaqay in loo baahan yahay in la joogteeyo cadaadiska lagu hayo Kuuriyada Waqooyi. We will not repeat the mistakes of previous administrations. mar kale ma samayn doono khaladaadkii ay galeen maamuladii hore. waxaan sii wadi doonaa cadaadiska ballaaran ee aan ku hayno Kuuriyada Waqooyi ilaa iyo inta ay ka dhigayso hubkeeda nukliyeerka. xushmad ayaan u haynaa qaar ka mid ah waxyaabaha ay samaynayaan, balse waa inaan isla fahanaa. waa inaan ka ciribtirnaa hubka nukliyeerka guud ahaan caalamka oo dhan. We have to end nuclear weapons, ideally in all parts of the world. madaxweyne Trump ayaa hadalkan jeediyay xilli uu kulan kula lahaa Mar-a-Lago ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe. maalintii shalay ayaa ahayd markii madaxweyne Trump uu xaqiijiyay in kulan qarsoodi ah oo heerkiisu u sarreeyo ay yeesheen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo agaasimaha CIA-da Mareykanka. aad ayuu mahadsan yahay Axmed Badar oo warbixintaasi nala socodsiinayay. waqooyi bari Kenya haddii aan adnana cabsi dhanka ammaanka ah oo ka taagan gobolkaasi ayaa halis ku noqotay waxbarashada gobolkaasi kadib markii macallimiinta iskuulada gobolkaasi wax ka dhiga oo ka soo jeeda qaybaha kale ee dalka Kenya ay dalbadeen in gobolkaasi laga bedelo. arrintan ayaa salka ku haysa dilka 3 macallin oo bishii Febraayo lagu dilay deegaanka Wajeer, waxaana dilkaasi lagu eedeeyay xarakada Al-Shabaab. macallimiinta doonaya in gobolka laga bedelo ayaa ku doodaya in 3daasi macallin ee la dilay loo dilay sababo la xiriira diintooda. wariyaha BBC-da Ciise Xaaji Cabdulle oo dhawaan safar shaqo ku tagay magaalada Wajeer ayaa u kurgalay sida cabsida dhanka ammaanka ay saameynta ugu yeelatay waxbarashada gobolka. warbixintan ayuuna ka diyaariyay. ardayda fasalka 3aad ee dugsiga sare ee Wajeer ayaa u fariisanaya imtixaanka bartamaha sanad dugsiyeedkan. muddadaas oo dhanna wax la sheegi kara ma aanay dhigan. iskuulka waxaa ka maqan 16 macallin oo 8 ka mid ahi markii saaxiibadood lagu dilay meel aan dugsiga ka fogeyn iyaguna baxsaday. ardaydu iyaga ayaa wax isbaraya, waana arrin uu aad ugu murugoonaya xaaladda jirta. maxamed Shukri oo isku diyaarinaya inuu u fariisto imtixaanka lagu galo jaamacadda dabayaaqada sanadkan. iskuulo badan oo halkani ku yaala ayay ku adag tahay inay buuxiyaan shaqada macallimiinta ka maqan. macallimiinta joogta waxay shaqeeyaan 2 gelin. dugsiyada qaarkoodna waxayba soo qortaan shaqaale aan ragli ahayn. laakiin sidaasoo ay tahayna haddana xiisadaha ardayda u baahan yihiin way badan yihiin oo macallin la'aantu saameyn weyn ayay ku yeelatay ardayda. macallinkaada oo adiga wax ku baray markuu kaa tago waddanka inay ka mid ahayn ayay tusay. imtixaankanayta oo la qaadanay oo KCSE ah Kenya dhan hal imtixaan ay isla qaadanayaan. ardayda maanta Wajeer ku nool waxay rabaan imtixaankaas inay ka qayb galaan oo ma noqonaysa fair ilmihii oo maanta Kenyada hoos ku noolay iyo ardayda Wajeer Northeastern ku nool in ay hal imtixaan isla qaataan ayagoona say maanta wax weyn oo inay macallimiinta aan Soomaalida ahayn ka dareeraan gobolkani waxay bilaabantay sanadkii 2015 oo 140 arday lagu dilay jaamacadda Gaarisa. dhacdadaas oo dadka aan muslimka ahayn ka dhigtay inaanay ku nabadgelayn waqooyiga Kenya. sanadihii la soo dhaafay oo dhanna dib ayay ugu noqonayeen macallimiintu deegaanada ay ka yimaadeen. hase aatee dilkii 3 macallin oo wax ka dhigaya iskuul ku yaala xadka Soomaaliya ayaa walaac xor leh sii abuuray. dugsiga sare ee gabdhaha Wajeer waxaa ugu dambeeyey oo ka tagay 7 macallin. magaaladan waxay la circiiraysaa arday hablo u badan oo u baahan in wax la baro. hase aatee maamulka iskuulka ayaana arrintan ka walacsan.
Hamaro Silvano waa maamulaha iskoolka sare ee gabdhaha Wajeer. Waxay ii sheegtay inay jirto suurtagalnimo ay waalidiinta iskoolka uga saari karaan gabdhaha si loo guursado. In this part of the country, we have issues of early marriages. gobolkan waxaa la tacaalaynaa arrimo ay ka mid yihiin guurka degdega ah. marba haddii ay waalidku og yihiin inaysan jirin wax macallimiin ah iskoolkii jooga, maxaa xiga oo dhacaya? waxaa xiga ee ay samaynayaan ayaa ah in gabdhahooda ay u guuriyaan. waxaana maamul ahaan ka walwalsannahay in marka ay wax walba caadi noqdaan in ay iskoolka ku soo xaadiri waayaan ardaydii oo dhan. Sometimes when you go back closely to the books that you may have read but you may not have been covering in class. Tan iyo bisha labaad ee sanadkan guddida macallimiinta Kenya ayaa 50 macallin iyo dheeraad ka aqbalay codsiyadoodii ahaa in meelo kale loo bedelo. Arrintaasina waxay dhalisay mudaharaadyo ay dhigaan shacabka iyo hogaamiyaasha gobolku. Laakiin guddiga degjalaq uma siinin baaqyada ah inuu joojiyo bedelka macallimiinta. waxaanu gar ay go'aankoodu ku difaacayaan ka hor aqristeen guddi baarlamaan oo arrintani loo saaray. We took away the Wajir teachers, but we have also done the same. waan ka kaxaynay macallimiintii oo dhan Wajeer. sidan camal ayaanu ku samaynay goobaha kale macallimiinteena ay dhibaatooyinka ku wajahaan, balse markay qatartu dhammaato ayaan u keenaynaa macallimiin wax barta. waxay la tahay maamul ahaan inaan fahno macallimiinteena, waayo waxay ku doodayaan inaanan fahmin marmarka qaar. mar walbana aan ka codsanno inay si fiican u shaqeeyaan, balse markuu dhib haysto aan ka sii jeedsanno. dadka deegaanka Wajeer waxay sheegayaan inay soo dhaweynayaan qof walba oo Kenyan ah oo doonayo inuu wax bar caruurtooda. balse inta ay jirto qatarta al-shabaab iyo in dadka lagu kala qaybiyo qowmiyadaha ay ka dhasheen iyo diinta ay haystaan, waxaa adkaanayso in dadka aan ka soo jeedin gobolka ay ku kalsoonaadaan ka shaqaynta gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan deegaanka Wajeer. ciise xaaji cabdille, BBC, magaalada Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya. aad ayuu mahadsan yahay ciise. dhegeystayaal ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay. waxaana ka mid ah xasan fanax uu jooga Bacaadweyn. wuxuu yidhi wax aad looga xumaado caqabadaha ku gudban hanaanka waxbarasho ee Waqooyi Bari Kenya, waxaana mas-uuliyadda leh buu yidhi dowladda oo hawsheedii gabtay iyo dadka deegaanka oo aan isku tashan dibna aan u eegin mustaqbalka ilmahooda, waayo macallimiinta dhigaya waa dad ka soo jeeda gobollo kale oo aan u dhalan deegaanka, ayuu yidhi. cabdulaahi maxamed xuseen oo jooga Baligubalan waxa uu leeyahay hanaanka waxbarasho ee gobolka Waqooyi Bari ee cabsida laga qabo inuu burburo waa mid saameynteeda leh, waxaana maamulka Waqooyi Bari Kenya iyo xukuumadda Kenya laga rabaa inay ka adkaadaan ammaanka gobolkaasi si waxbarashada dhalinta loo sii wado. aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaasha kale ee ra'yigooda soo dhiibanaya. halkan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa hagaag dhanka iyo Turkigana, iyadoo shalay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ka dhawaaqay doorasho madaxtinimo iyo mid baarlamaan oo muddo sanad ah waqtigeeda laga soo hormariyay, ayaa waxaa la isweydiinayaa waxa go'aankaasi ku dhaliyay. madaxweyne Erdogan ayaa shaaciyay in doorashada ay dhici doonto 24 Juun si loo helo hogaamiye awood buuxda leh. haddaba maxay tahay ujeedada ka dambaysa in Erdogan uu doorashada muddadeeda soo hormariyo? su-aashaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya Mustafa Maxamed Cali Caadle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isla markaana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Ankara Yildirim Dayesid ee ku taala magaalada Ankara ee dalka Turkiga. kulley laba fasiraad jirto. marka hore midda ah hadalka madaxweynaha oo ah in wadanka uu ku jiro xaalado adag dhanka dhaqaalaha iyo dhanka howlgallada ay ka wadaan Suuriya, saas daraadeedna loo baahan yahay in la qaato go'aano adag. go'aanadaas adag si loo qaatana loo baahan yahay in nidaamka cusub ee loogu talagalay ee madaxtooyada ah ee Turkiga ka dhaqangelaya in la dhaqangeliyo kadibna go'aanadaas la qaato in loo baahan yahay ee uu sheegay. fasiraadaas marka waa dhankaas. fasiraad kale oo xisbiga soo jeediyey gudoomiyaha xisbiga MHP dowlad Bahjeli iyo xisbigan kale uu hogaamiyo madaxweyne Erdogan ba ay ayagana dana gaar ah ay meeshaas ka dhex arkeen. danahan ay meesha ka arkeen aad sheegayso maxay noqon karaan? markii aan fiirino xisbigan hadda soo jeediyo oo kale, ayaga waxaa jiro in xisbi kale laga dhex sameeyey oo qayb xisbigaas ka mid ah xisbiga ka goosteen oo xisbi cusub oo E-Party la dhahay ay samaysteen. xisbigaas haddii doorashada hadda la galo kale waxa waaye way ku adkaan doontaa, sababtoo ah sharciga doorashooyinka Turkiga qodobkiisa 36 wuxuu dhigayaa in xisbiga si uu uga qayb galo doorashada looga baahan yahay in doorashada 6 bil ka hor ugu yaraan magaalooyinka Turkiga haaf uu xafiiso ku leeyahay. marka maadaama sanadka ugu horeeyay
iyo bilihii ugu horreeyay oo ku jiro xisbigaas oo kale waxaa ku adkaanaysa inuu doorashada ka qayb gala. taas waa qodobka labaad waxaa waaye oo labada xisbi si wadajir ah meeshaas ay faa'iido uga dhex arki karaan iyadana waxay tahay in xisbiga hadda afraad oo kale baarlamaanka ku jiro oo HDP la yiraahdo ama xisbiga ay kurdida leeyihiin madaxdiisa iyo xildhibaanadiisa qaar badan ay dacwooyin ku furan yihiin saas daraadeedna ay ku adkaan doonto in xisbigaas uu baarlamaanka soo galo maadaama xisbiga baarlamaanka soo galaya looga baahan yahay inuu helo 10% codadka guud ee doorashada. saddex xisbi markaas inay gashay noqon doontaa baarlamaanka oo kale ah xisbiga hadda talada hayo AKP iyo xisbiga labaad oo CHP aan dhaho iyo xisbiga kale oo saddexaad oo MHP. madaxweynuhu waxa uu sheegay in caqabado jira awgood iyo sidoo kale arrinta Suuriya loo baahan yahay in la soo dedejiyo doorashada. marka maxaa iska qusay arrimahaasi iyo doorashada? madaxweynaha fasiraadiisa markii la fiiriyo madaxweynaha wuxuu leeyahay Turkiga wuxuu go'aansaday inuu u gudbo nidaamka madaxtooyada ah. marka saas daraadeed waxaa loo baahan yahay leeyahay go'aanada la qaadanayo taariikhiga ahna in maadaama nidaam cusub aan qaadanay waxa loo baahan yahay in lagu hoos qaato nidaamkaas in lagu hoos qaato. saas daraadeed wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay waqtiga aan ku jirna awgiis waxaa munaasab noqotay in nidaamkaas loo gudbo. awoodda uu u baahan yahay ee haatan uusan lahayn maxay tahay? hadda madaxweynaha awood ma leh. awoodda waxaa iska la hadda golaha wasiirada isagana maanta uu sheegay in golaha wasiirada iyo siday u shaqeeyaan iyo ra'iisul wasaaraha uu ku qanacsan yahay laakiin loo baahan yahay maadaama Turkiga guud ahaan la isla qaatay sanad ka hor in nidaamka madaxweynaha la qaato wuxuu isaga marka ku qanacsan yahay uu leeyahay waxaan u baahanahay go'aamada aan qaadanayno taariikhda galayna in marba haddii aan doorano yacni inaan nidaamkaas qaadano waxaan u baahanahay inaan ku dhaqsano. dad ayaa waxay leeyihiin doorashadan waxaa loogu talagalay marka hore inay dhacdo 2019 Erdogan hadda wuu soo dedejiyay marka suurtagal waxa ah inuu isleeyahay ama madaxweynuhu ka baqayo in muddada sanadka ee ka dhiman doorashada in shacbiyadiisu ay sii lumi karto marka uu isleeyahay hadda ka faa'iideysa. aniga ilama ahan in shacbiyadiisa inay saameyn badan ku yeelanayso uma maleynayay laakiin waxaa laga yaabaa in diyaar garowga xisbiyada kale ay saameyn ku leedahay mar haddii dadka la tartamaya aysan diyaarsanayn fursad halkaas way ka jiri kartaa. haddii doorashadaasi maantaba la qabto tusaale ahaan ka waran fursadaha madaxweyne Erdogan inuu ku guuleysan karo? markii aan fiirino hadda aftidii la qabtay markii ugu dambeysay dastuurka wax looga bedelayo kale magaalooyinka ugu waaweyn Ankara, Istanbul iyo Izmir oo kale jawaab maya ahay bixiyaan yani oo inay ka soo horjeedaan arrintaas ahayd. marka xoogaa aftidaas inay saameyn ku yeelatay markii aan fiirino axsaabta kale iyo musharaxiintooda oo kulli ay sheegeen in xisbi walba uu tartami doono ilaa 5 xisbi. waxaa suuragal ah in xisbiyadaas haddii ay tartamaan madaxweyne Erdogan ay ku adkaato in wareega koowaad uu helo 50% wax ka badan taasoo ka dhigi karta yani inay ku adkaato in wareega koowaad ku guuleysto loona baahan doono in wareeg labaad la aado 15 maalin gudahood. waxaa kaloo iyadana jirta marka hubnaan la'aan ah in haddii haddana wareega labaad la aado in xisbiyada kale haddana madaxweyne Erdogan ay u midoobaan oo meeshaasna ay xoogaa cadaadis ka saaraan iyadana khatar kale oo isaga ka dhan ahaa meeshaas ku jirto. kaasi wuxuu ahaa Mustafa Caadle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda. dhanka iyo haddii aan eegno dalka Ethiopia baarlamaanka dalkaas Ethiopia ayaa maanta la filayaa inuu yeesho kulankiisii caadiga ahaa ee usbuucla ahaa balse kan maanta waxa uu ka duwan yahay kuwii hore ee caadiga ahaa. dalkaasi ayaa in dhawaalo ku socday isbedel dhanka siyaasadda waxaana arrintaasi hormuud ka ahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ee dhawaan la doortay Abiy Ahmed. haddaba kulanka maanta maxaa laga fili karaa? arrintaasi ayaan goor dhaweyd waxaan wax ka weydiiyey wariyaha BBC da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam. kala fadhigani waa kii 22aad sidaad sheegtayna maalin walba oo khamiista isbuucii ay baarlamaanku hal mar firaa laakiin 3 arrimood ayaa laga filayaa maanta inuu la ansixiyo golaha fulinta ee wasiirada awoodooda in isbedel lagu sameeyo iyo in afayeenka cusub ee wadanka ee baarlamaanka la ansixiyo iyo golihii wasiirada ee ra'iisul wasaaraha cusub Dr. Abiy Ahmed uu soo dhisay in la ansixiyo 3 arrimood ayaa maanta laga filayaa kala fadhigan maanta. isbedelka lagu sameynayo golaha fulinta muxuu yahay ma waxa la dhimayaa tiradii mise awoodii? xasan arrintaasi si cad looma qeexin laakiin in awoodoodii la dhimayo in awoodooda wax lagu darayo in awoodooda wax laga xadidayo arrintaasi ma cadda laakiin waxaan rajaynayaa maanta inaan ogaano oo laguma qeexin horta baarlamaanka arrinta lagu soo qoray laguma qeexin. Cabdinaasir waxaa kale oo tiri waxaa maanta la ansixinayaa afhayeenka cusub ee baarlamaanka dalkaasi marka soo ma jirin afhayeen hore maxaa keenay in mid cusub hadda la ansixiyo? xasan uu jiray Abadulla Gamadha ayaa ahaa afhayeenka baarlamaanka sanooyinka dambe ee wadanka Ethiopia laakiin waxaa moodaa maadaama ra'iisul wasaarihii uu noqday qowmiyadda Oromiya afhayeenkuna uu ka soo jeedo qowmiyadda Oromiya
nooc ahaan waxaad moodaa awood qaybsi inay meeshay timid marka hadda lama oga afayeenka cusub midkuu yahay ma gabadhii ku xigtayba oo qowmiyadda axmaarada kasoo jeeda ma qowmiyadaha kale midkoodba laakiin waxaad moodaa abaadhula gabadha inuu meeshii kasii socday waayo isaga ahaa markii horeba afayeenka baarlamanka qowmiyadda oromiyun kasoo jeeday marka awood qaybsi ahaan baan u malaynayaa in afayeen cusub inay keeni doonaan taana maanta la ansixin doono ugu dambeyntii marka dadka reer Ethiopia maxay ka filayaan golahani cusub yaasi golahani ka dhex muuqdo oo la saadaalinaya wadamada qaarkood sida ay yihiin wadankan Ethiopia ma aha oo wadamada qaarkood intaan la ansixinin ka hor ayay dadku inta badan la sii sheegaa ama la sii og yahay oo jaraa'idkii meel bal u cadeeya laakiin wadanka Ethiopia uu ka yar bedelan yahay ilaa haatan ma cadda wasiiradu kuwa ay yihiin iyo wasaaradaha ay ku kala magacaaban yihiin markii la ansixiyo unbuu dadku inta badan ogaanaya oo ay saxaafadda inta badan ay hadal qaadkeedu ku badnaan doonaa laakiin dadku waxay aada u aaminsan yihiin wasiiradii hore inay inta badan u badnaan doonaan oo wejiyada cusub ay ku yaraan doonaan laakiin wasiiradii hore waxaa laga yaabaa wasaaradaha hayeen in loo kala bedelo ayay u badan tahay kaas wuxuu ahaa wariyaha BBC da jigjiga cabdinaasir sheekh maxamed xikam oo qadka telefoonka iigu waramayay ciyaarihiina tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay in kooxdiisa oo xalay 2-0 uga badisay Bournemouth ay muujisay in ciyaartoydiisa ay diyaar u yihiin kulanka nus dhamaadka ee koobka FA-ga ee Sabtiga ay la dheeli doonaan Tottenham. Mourinho ayaa axadii hore guuldarro la yaab leh kala kulmay West Brom ayaa xalay waxa uu bedelay 7 ka mid ah ciyaartoydii kulankaasi u safatay. Joy Barton oo u soo ciyaariyay kooxo ay ka mid tahay Manchester City ayaa loo magacaabay tababaraha kooxda Fleetwood Town ee ka dheesha horyaalka League One-ka England. Waxa uu xilkaasi la wareegayaa 2 Juun maalin kadib marka uu dhamaado ganaaxa saaran ee loogu haysto inuu dheelay bakhtiya nasiib kubadda cagta ah. Xiriirka kubadda cagta England ayaa garoomada ka mamnuucay muddo 18 bilood ah. Barton ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay xilka loo magacaabay. Halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. وهاجاك دنكا iyo Mareykanka magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka waxa lagu qabtay kulan balaaran oo lagu dalacsiinayay shakhsiyaad ka tirsan booliska magaaladaasi. Dadka la dalacsiinayay waxa kamid ahaa wiil dhalinyaro Soomaali ah oo intii muddo ahba kamid ahaa booliska magaalada Minneapolis. In dhawaalana waxa la dareemayay dhalinyarada Soomaalida oo ku biiraya booliska magaalooyinka gobolka Minnesota ee ay Soomaalida degto. Saajin Mukhtaar Cabdiqaadir waxa waa wiilka la dalacsiyay waxa uu la kulmay wariyaha BBC da Maxamed Xaji Xuseen Shiine oo wareysay marka hore bal sida uu dareemayo. والله waxaan dareemayaa in mataqaanaa in guul dadka Soomaaliyeed dhamaantood magaalada degan u soo hooyatay inay tahay maadaama ay dadka Soomaaliyeed aad loogu ciriiriyo mataqaanaa sarfishyada ay ka helaan dhinaca dawladaha sida dawladda booliiska oo kale marka waxay taa cadeynaysaa dadkeena guuxooda la maqlay oo la dhageystay laakiin waxaan leenahay wali hawsha fara kama qodna kaliya ma dad badan ayaa soo socda marka waxaan ka rajeynayaa community-ga in ay taageeraan askartooda maadaama askarta ayaanta lagu kacsan yahay oo dhibaato yar iska jiraan imisa askaraba imika Minnesota Minneapolis ka howlgasha oo Soomaaliya wallahi hada way badan yihiin waagi hore farahan ku tirin jiray laakiin way yara badan tahay 12 wayaan laakiin magaalada aan ka shaqeeyo Minneapolis waxa joogta ilaa hadda waxaynu nahay 6 ilaa 7 darajadan saajinka meeqa u gudubtay oo u dalacday sanadkii hore markuu ay bisha 12 ayaa la dalacaysiyay laakiin maanta ayay noqotay maalintii xafladda loogu talagalay waxa weeyaan waa supervisory role oo leadership weeyaan oo mataqaanaa askarta ay ka hooseyso askarta officerka title-kooda ay command gareynaysid taa waxay keenaysaa marka fursad qaali ah oo aan dadkayga marka iyo dadka magaalada degan dhamaantood dhinac kastaba ha imaama Soomaaliha ama yahan ugu adeego jagadan ma kaligaaba Soomaalida gaadhay mise waxa weeye uga gaadheen koox kalena laba nin oo iga horeysay oo dhalinyaro ah iga horeysay baa jira oo gaartay heerkan hadda ka hor laakiin maadaama anigu aan leeyahay dad badan oo support gareeya community-ga oo dad badan oo aad i xiiseeya danahayga maadaama aan hadda ka hor YouTube video aan sameeyay marka waxa cad inay dadku aad i support gareeyaan maanta i soo baxeen marka aad ay u mahadsan yihiin dadkeena taas ayaan ka dadka Soomaaliya waa dad aad u fiican Soomaalidu waxa weeyaan askarta walba ka qabtaa ama walaaba ka qabtaa askarta Minneapolis bal maxaad oran lahayd Soomaalidu sidee ha u arkaan madan lahayd
wallaahi niyo hadda dee waddankan xoogaa waxaa lagu jiraa xilli kala guur ah oo mataqaanaa dee waddankiina uu isbedelay mataqaanaa leadershipkii kore executive-ka magaalooyinka hoosena leadershipkooda uu isbedelay gobolka Minnesota waa gobol ka tirsan gobolada kontonka ah magaaladeennu magaalo ka tirsan marka waxaan ku fiicannahay magaaladeennu wax kasta oo soo mara ama qof kasta oo la doorto dadkeen mataqaanaa Soomaalida aad ay ugu badan yihiin waliba dad Soomaali oo leadership badan leh oo dhinac walba leh ama dhakhtar leh booliis leh injineer leh ayaa degan magaaladan oo mataqaanaa aad dadkooda wax ugu qabta dabcan siyaasiyiin waynu leenahay oo hadda siyaasiyiin badan oo soo kordhay laakiin waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed wali dalacaynteedu waa meel waa wax yar marka loo fiiriyo dadka magaaladan degan ogow lacag badan ay Soomaalidu magaaladan kharash badan oo dhaqaale ay soo geliyaan marka ani keligay hadda iyo labada nin ugu horeysa kaliya ma waxaan u baahanahay dad badan geliyo meeshan agency-ga aan u shaqeeyo iyo agency-yada kale ee sirigu ay leedahay maadaama adeega dadkeenu aad u badan yahay dadkeenu dad productive oo aad dadka ugu fiican waddankan jooga ay yihiin dhalinyarada Soomaalida ee imika aan booliiska Minnesota ama Minneapolis aan ka tirsanayn magaalada jooga ee maqlaya hadda maxaad oran lahayd haddii doonayaan askarta inay galaan maxay la yimaadaan oran lahayd waxaan oran lahaa horta mataqaanaa in aad horta howlkar ahaatid oo aad mataqaanaa shaqadan aan ka shaqeyno waa shaqo aad u yar dhib badan shaqooyin kale way ka dhib badan tahay maadaama dadka qof aad la shaqeyn karto oo san isku dhaqan inaan ahayn isku diin inaan ahayn haddana waxa weeyaan waa shaqo oo mataqaanaa lagaaga badan yahay marka inaad magacaaga marka hore dhistid oo adiga aad soo saartid oo mataqaanaa iska ilaalisid waxyaabaha yarar ee ku keeni kara shaqadan lagu diido sida mataqaanaa sharciga darawalnimada iyo sharciyada kale ee loogu baahan yahay inaad ku noqoto police certificate uga heshid state-ka laakiin dad badan dhalinyaro badan oo hadda aniga aan shaqada aan ku baraarujiyay way jiraan hadda waxaan siriga Edinburgh la yiraahdo wiilka ugu horeeyay ee Soomaaliya la qaatay waa yar hadda Soomaaliya ay qaateen taana waxa keentay dadaalka aan ku dadaalnay in aan Soomaalida aan u shaqeyno bulshadeena gaar ahaan magaalooyinka ku dhow Minneapolis kaasi waxa waa saajin Mukhtaar Cabdiqaadir waxa uu warramay wariyaha BBC-da Shiine muuqaal kooban oo baraha bulshada lagu faafiyay ayaa muujinayay gabar la garaacayo oo dalka Gaanana ka noqotay arrinta ugu hadalhaynta weyn muuqaalkan ayaa la arkay gabar la sheegay inay ka soo dibdhacday xilligii loogu talagalay inay guriga timaado taa oo markii dambana la karbaashay wasiirka jinsiga iyo ilaalinta arrimaha bulshada Gaana ayaa sheegay in boolisku ay tahay inay gacanta ku soo dhigaan sida warbixintan ku eegay Thomas Nadi waa kan Cabdiraxmaan Cadow oo soo jeediya muuqaalka laga soo duubay Shiishaagu oo ku taalo waqooyiga Gaana ayaa wuxuu muujinayaa laba dhalinyaro da'yar oo wiilal ah oo isticmaalayo shaabuga faraska si ay uga karbaashaan gabar dhalinyaro ah halka ay laba kalena ay ku dulhayaan kursi loox ka samaysan dad badan oo daawanaya ayaa waxay u eeg yihiin kuwa ku sii boorinaya in la garaaco gabadhuna way qaylinaysaa iyadoo aan wax miciina haysanin aabbaha gabadha dhalay ayaa dhalinyarada weydiistay inay u ciqaabaan maadaama ay guriga xilliga ay imanaysay ka soo dibdhacday sida ku cad warmurtiyeed ay soo saartay wasaaradda jinsiga iyo ilaalinta arrimaha bulshada ee dalka Gaana wasaaraddu waxay dhacdadaasi la noqotay mid aad looga naxo waxayna ugu yeedheen booliis si uu arrinta u baadho kadibna dembi baadhaha uu ugu soo gudbiyo sharciga agaasimaha guud ee hay-adda xuquuqda carruurta Bright Apia ayaa sida oo kale cambaareeyey islamarkaana dowladda ugu baaqay in ay tallaabooyin hor leh u qaado sidii ay xuquuqda carruurta dalka ay u ilaalin lahayd baaritaankan waxaa ka baxsan in qoyska oo dhan la ogaado waxa ku qasbay in tallaabadan ay qaadaan marka arrintan waxay horseedaysaa in wax laga bedelo qaabka ugu wanaagsan ee loo daryeeli karo carruurteena dalka Gaana ayaa wuxuu leeyahay shuruuc adag oo mamnuucaya xadgudubka jinsiga hase ahaatee falalka xadgudubyada ayaa weli waxay dalka ka yihiin kuwa sidooda uga jira BBC-na weli si madax bannaan uma xaqiijin cidda muuqaalkani sii daysay mahadsaned Cabdiraxmaan idaacaddii subaxnimona waa naga intaa tan iyo 2 duhurnimo waa BBC-da oo idin leh sidaa iyo nabad gelyo